wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa si wada jira xariga ugu jaray xarun cusub oo loogu talagalay waxbarashada gobolka Banaadir. xaruntan ayaa waxa ay ka kooban tahay xafiisyo loogu adeegi doono bulshada caasimadda ku nool iyadoona ay u dhameystiran yihiin agabkii loogu shaqeyn lahaa. agaasimaha waxbarashada gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Nuur ayaa ugu mahad celiyay maamulka sare ee gobolka Banaadir hirgelinta xaruntani oo baahi badan ay u qabeen bahda waxbarashada gobolka. runtii maanta farxad gooni ah ay tahay in maanta aan agaasiga waxbarashada gobolka Banaadir aan tilaabooyinkiisa ugu horeeyay aan qaadno ayagoo nagu hogaaminayaan wasiirka waxbarashada iyo gudoomiyaha gobolka. runtiina intaan si fiican uga ogahay oo wasiirka waxbarashada uu diyaar u yahay juhdi badan uu ku bixinayo in waxbarashada dalka dhan ay hagaagto meel fiican ay gaarto. ana marqaati ka ahayn maadaama waxbarashada ka wada shaqaynaynay tilaabooyinkii fiicnaa ee la qaaday sanadahan u dambeeyay haddana khaasatan gobolkan Banaadir in hawshiisa hore u socoto. marka farxadaas ana ii tahay dhammaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Caamir Shakeeti oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in dadaal badan ay ku bixiyeen hirgelinta xarun u gaar ah waxbarashada gobolka Banaadir. maanta waxaa farxad noo ah in xiriga laga jaro xarunta gudoonka waxbarashada ee gobolka Banaadir. waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo wasiirka waxbarashada doorka weyn oo ka qaatay in xarun ay helaan maamulka gobolka Banaadir gudoonkoodii waxbarasho sida waxbarashada loo horumarin lahaa caasimadda gobolka Banaadir maadaama ardayda ugu badan ay yihiin ardayda caasimadda gobolka Banaadir. mudane gudoomiye adeegaaga quruxda badan iyo dardaarankaagii iyo howlgelintaadaba waxaan rajaynaynaa insha Allah anoo ku hadlaayo magaca gobolka Banaadir dhanka arrimaha bulshada inaan ka soo dhalaali doono maadaama agaasin howshaaseti wadi kara kana soo bixi kara u magacaawday magacaawisti Cabdiraxmaan inaan kaaga mahad celiyo ayaan rabaa sababtoo ah dhinaca waxbarashada wax badan oo caqabad ayaa ka jirtay caqabadii aad ka dulqaaday mustaqbalkii dhalinyarada Soomaaliyeed waa kaaga mahad celinaa mudan gudoomiye. wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in waxbarashada gobolka Banaadir ay hormuud u tahay guud ahaan gobolada dalka waxbarashadooda ayna muhiim tahay in dawladda dhexe iyo maamulka gobolka Banaadir ay si wada jir ugu shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa. waxaan rabaa inaan ku bilaabo mahad celin aan u mahad celinayo gudoomiyaha gobolka oo runtii aan qof aan aad ugu kalsoonahay taariikh fiican aan isla leenahay aan hubo wixii gacantiisa gal wax dhumaaya inaysan noqonaynin durbadiba muujiyay ogo wada hadal yar oo yeelanay daqiiqadaba horbooday tusiyay kalsooni in mataqaanaa dariiq sax la qabsan karo waana tamaantii halkan ka bilaabatay. waxaa kaloo mahad celinayaa intii tabarka geysatay iyo caqli iyo tagaad intaba inay maanta noo suuro gashay inaan fariisino rugtii laga maamul lahaa waxbarashada gobolkan iyagana waa mahad celinayna. waxaan rabaa inaan ku bilaabo hadalkayga siyaasadda xukuumadda dhexe ee ku abaaran guud ahaan gobolka Banaadir gaar ahaan waxbarashada iyo adeega bulshada ee gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay sare u qaadista garaadka aqooneed ee bulshada caasimadda. gobolka Banaadir waa cusub oo ciida oo u bariyay ayay u tahay maantay maadaama waxbarashadii iskuulada iyo ciyaalka gobolka Banaadir ba maamulka lagu soo wareejinayo. wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ah isaga faahfaahin naga siin doona
dadaalkii loo soo galay hawshan iyo waxyaabaha nala ka rabo annaga haddii aan nahay gobolka banaadir iyo roolka dowladda ama doorka dowladda iyo anaga doorkeenu wuxuu noqon doonaa faahfaahin isagana siin doona balse in badan oo badan ayaan anigu uga mahad celinayaa wasiirka dadaalkii aan waxba lala harin ee nafurka ahaa ee oo u galay suuragelinta arrintan waxaan sidoo kale uga mahad celinayaa dadaalkooda dalladaha waxbarashada oo aan hubo wasiirka iyo dalladaha iyo agaasimka waxbarashada gobolkuba inay dhammaantood ka warqabaan doorka waxbarasho ee reer banaadir maanta ay ku sugan yihiin oo ah runtii door ayaan u qalmin sidii loo gaarsiin lahaa waxbarasho baahsan ubadkeenna ay u heli lahaayeen kalsooni waxbarasho dhiirigelin tayo waxbarasho iyo tiro waxbarashaba ayaa wasiirku geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay waan uga mahad celinaynaa annaguna haddii alla idmo hawshaas faraha badan oo nafurka ah kuma hakran doonaa garabkiisa ayaan istaagi doonaa